horta waxaa cajiiba dadkan ma nabad 32 sano ay haysteen ayaa dhibayso kulligood waxay isku raaceen waxay ku leeyihiin dhulbahante ilaahay ka soqay ingiriis baan siiyay dhulka anaga iska leh naga dhulbahante wax meesha raano dhulbahante looma soo hiilin karo sababtoo anaga iska dhulka qabiilada kale is aruursanayo dib wadaan warbal dadkan ayaa dhibkooda ma ayaga dhib lagu wada masaga dhib wada dadka mar walba ayagu dulmanay isku malayaan bar dadkan ila dhageystanimo aflagaadada ee dadka bini'aadam ku hayaan 32 sano Soomaaliya ka dig weysay wax loo adkeysan kara ma mar walba dulmanay isku malayaan waxay ku leeyihiin fadhi ku dirin lagu jiro kale weligeena la kama guuleysan anaga weligeena dagaal bay raadinayaan koonfur inay degto mar rabto bay ku hayaan qadaad weyn ilaa midda 32 sano nimankan Soomaaliya waxay ku noqdeen tikreenayo in laga qabto maane macal muqdishoodan ay sheegayaan nabad man irka ay ku hayaan bambanta afku u macaanayaan irri waxa la aqoon ay la wareegayaan irka ay sheegaysid ayay baabinayaan dadkan dib iyo qaxar bay rabaan nolol fiican ma rabaan afar qof hargeysa in nolol fiican ku haystaan inta kala baabaado Soomaali marka dadkan hadda meel loo soo wada jeesan hadda waxay ku hayaan qabiil kowdi way ka weynanaysaa sheekadu qadaad weyn oo dhan baa isa soo raacayo nabad bayna isku raacayaan sida idinka ay Soomaaliya idinkaga cidibtiraan ama aad Soomaali dhinac ka soo raacdin ama aad gooni u goodin qabiil ahaan gooni ah bal daawada ragaan dhageysta bixiya laakiin qaran ayaa muhiim ah taas waxa leenahay qarankeenu daafacayna jamacada is qabso askarta haloo doon waa inaynu jamacada is qabsanaa ciidamadiina loo gurmada geesiyada aan weligood taariikh waxaan u sheegnaa raga ka soo ordiya ma jirteen iyo boosaas iyo hilka shanaad iyo kismaayo iyo reerka isku qaybiyay taariikhda meel la naga adkaaday ciidamada qaran wuxuu ku garab taagan yahay ciidamada qaranka difaaca qaranka si adag waxaan baaraynaya duulaanka faragelinta ah ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ku soo qaaday gudaha Soomaaliland xisbiga wadani waxa uu bogaadinayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay iska difaaceen duulaanka askar darrada ah cid kasta oo dibadda kaga soo duushay nabadgelyada iyo ammaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland الله عليه وسلم إلهي ما الله سبحانه وتعالى إلهي يا نمعنا بدنا نقوم متسيسوا ما هذا ولا ما أنتوا إن شاء الله ينانو كهذا الله حاله الدكتور مريم ذلك إنه ما أنتوا حمريا من حالة عن هراء نص مريم المريم وأنا أنو كدقي أنت هالصوص أنا أنو كدقي إلا ما أنتوا قبتي حكمك مصبح وأنا أركي إن أرنتين كنا ما ينسوا قال العصر قرن أركي وإحنا قال 5 سنوات وإحنا كبكبيني معنا بو موسى وحبل بوكيتي كساري يقول يوم السنة قرن نمو أرنتها ما أنت كسرت الأسعانودنا هوري الضوء السوق صابو وحانا نعمل حماديسة طيب حمانتيسة ما أنت هالك مرسو iyo halkeenu marino wax kala jaad Muuse waxa ka xoog badan qaranka jiritaankiisa iyo dastuurka waxa ka xoog badan kursigiisa la yiraahdo soo dhig waa lagu la tartamayaa maanta waxa weeye kursigii iyo qarankiba khatar buu ku jira qorshahan maanta socda la socod ka socda anoo ka xun dadkii ku dhintay mudaharaadkii salmiga ahaa sidii ay ugu dhinteen kuwii joon ku dhintay iyo August ku dhintay Hargeysa Erigaawo iyo Burcawa kuwa laascaan ku dhintay mudaharaadkan waan ka xunay dadka sibilka ah ee laascaan ku dhintay dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada qaranka Soomaaliland iyo xoogga ku soo duulay Soomaaliland waan ka xunay warshahan waxa weeye qorshe Soomaaliland la doonayo in lagaga saaro khariidada Afrika iyo adduunka qorshahan waxa ka shaqeeyay in farmaajo 5 sano oo xamar ku amarto gaarinay qorshahan wuxuu leeyahay guddi sare oo isir ku sameeysan oo 22 G21 leeyahay guddidaas oo rag badan oo siyaasiyiin
oo Israel ka soo jeeda beeshaas ay ka mid yihiin sida Cumar ra'iisul wasaarayaashii hore Cumar Cabdirashiid ka mid yahay Cabdiwahaab Cabdiweliga magaalada Saaya ahaan jiray ra'iisul wasaare Farmaajo Fahara Macalin oo Kenya ka soo jeeda siyaasiin ka wasiir ahaan jiray in jangeli ayaa weey qorshahan wuxuu ahaa qorshe uu Farmaajo sameeyay oo ku xiriira xitaa ciidanka Eritrea loo diray wuxuu ahaa ciidan loo soo tababarayo Soomaaliya lagu baabiyo horta Soomaaliya waa dalalka Afrika ee xornimada helay 60kii taa Kenya la mid tahay Tanzania la mid tahay Nigeria ma wada qaadan saddexda dal ee Soomaalida ee Djibouti iyo Somaliland iyo Soomaaliya waa saddex wadan oo Afrikaan ah oo adduunka yaqaan xuduud international cid ka saar kartaa ma jirto anaga qaadnay awooyaashii iyo abayaasha qaaday mar oo Somaliland iyo Soomaaliya yiin ku sameeyay yiinkaas miciisu ahaa in shan Soomaali la isku keeno كوم يسدين كي محمد سياد بدأ أي كتناسلي ودن كإنف لي غيره السومال بكتو تضبيط تضوات كنا بحكة تناسلي جيبوتي سدين تنا بحكة تناسلي أوجادين هكذا سورة الشنطي هي ميلادي الصومالي اسكت كل بابا رحمانة السومال اللي له مشيري كرتنا وح أغلى كلامها محمد سياد برا اسكت ده إلى هيميلادي SNM إلى الدلك السوء عليسو شعب غير الصومال إلى حسوقي وكفر القروي ما أنت نتشي 21 كوجولي سنميش حرام بكتا واحد صعوتا دربان قبيل وإسرة وميل كستال إسكيني والله أسعانات للدوني يو ينقطو ستيج كي صومال اللي قبرقوني waxaan leenahay ragga durbaanka garaaciyo isirka ah ee ku sameeysan tacasub qabiil arintu ku laascaanol ku eekaanaysa geeska intaas Afrika Soomaaliya degto dhan way gaaraysaa muqdisho ay ka soo hanjabisaan ee hub ka soo qaadanaysaan ku nabad ku joogimaysa haday bahasha noqoto isir loo dagaalamo qoomiyada Soomaaliya haday meeshii wada degtaba ku dagaalanto wadan wacankaasi laascaanol ku eekaan maayo meelaha ma ka soo gurmateen ay ka qarxi doonta gudiin waxa leeyahay dadka reer Soomaaliland maanta halka la marayo iyo halka ay